السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا دمانتين وايد من السلامة ميل البادون قد على ذي ساكوذ جوكتان channel كادي قد عوانا سوا شمس حسن حنا كسو دوا وانكولا هاي مر لوادي مر سدحات سودا دوادا دمانتين بليز فيديو قاق هداد يقو عصب تهي سبسكرايب نوده لاقي شير كومنت قروح بدنا لقفسو ووالاشا شمس كسو دوا channel كوا channel كاقا aniga maamulo leen ka ahay kusoo dhawaada in leeyahay dhammaantiinba waxaa in leeyahay igaraal noqda gabadheeda yarta ordaysa ay imaatay boosaa dhahay marka waxaan leeyahay asxaabteeda channelka waa channelkeena kusoo dhawaada aniga maamulo leen ka ahay idinka ayaa iska leh waxaan ku leeyahay laagta ha iga baqiilin waa walaasha ku dhajile sharena iigu sii qabo maasha Allah tabaarakallah maanta abay way timid maxay idin sidaa maxay sawadaa waxaan idin leeyahay asxaabteeda aadka u jeclahay wiil aboowa ah ayaa nala soo wadaagay qisadiisa iyo wixii ku dhacay iyo meesha kula dhaceen iyo meesha kasoo bilaabatay iyo hadda haatan la joogo meesha uu ku sugan yahay waa wiil walaalkeen ah la soco videoga bilow ilaa dhamaad kuna soo dhawow waan ku leenahay waa ku soo dhaweyneynaa maasha Allah tabaarakallah soo dhamaadeen qisada hadda noo bilaabanaysa walaalkeen wuxuu ku nool yahay wadanka Kenya ayuu joogaa gabar ayay iska barteen social media in muddo ah ayaan saaxiibaheen oo dhahay Facebook xiriirkeena ka bilaabmo dhahay groupada la isku keena ah ayuu xiriirkeena ka bilaabmay gabadha waxay ku nooshahay qurbaha anna waxa ku noolahay Africa oo dhahay alxamdulillah adiga in muddo ah jaceelkeena wada sheekaysi qosol iyo sheeko kidudka wax ka dhex baxno gooni isku soo qabsanay meesha iskala jaan qaadno dhahay meesha sheekadeena ka socotay maasha Allah tabaarakallah sheekada wixii socotaba jaceyl isku bedesho dhahay jaceyl ay u hayaamay jaceyl isku bedesho dhahay wax badan muddo ayaan wada socono dhahay walaashay muddo ayaa jaceyl naga dhaxeeyay muddo ayuu xiriirkeena socdo dhahay intaan ku soo koobi karin oo yiri aan xisaabin karin oo yiri jaceyl waliba xad dhaaf oo yiri oo xadka ka baxsan oo dhahay xaqiiqatan qofkii arko yiri qofkii markaas arko yiri qofkii hadii arko yiri laba qof ayaan u ahayo dhahay wallahi xaqiiqdii wuxuu yiri xaaladeeda mid wax laga qaban karo maba ahan oo taagan yahay wiilkan badweynta ayaan dhex joogaayo dhahay badweynta marka dhex taagan tahay dhahay meel looga noqdo miyay leedahay waa may badweynta ayaan dhex taagan oo dhahay wuxuu dhahay walaashay waxay ku nooshahay qurbaha sida idin sheegayba Yurub ayay degan tahay ay ku nooshahay dhahay waxay haysataa laba caruur ah waan ku qaato yiri waan ku ogolaaday gabadhaas walaashay ah saas ee tahay ayaan ku qaatay aan ku jeclaado dhahay aan diyaar ugu ahaa igaraal noqda marka wuxuu dhahay badweynta marka dhex taagan tahay meel aad uga noqoto miyay leedahay meel aad dib u laabato miyay leedahay waa maya badweynta dhex taagan oo hiridoonta way la sabeynaysaa ayuu dhahay walaashay wuxuu dhahay aniga waxa ay ahayd waan ku qaabilo yir in laba caruur haysatay in hooyo single ay ahayd wuxuu dhan way ii sheegtay waxba igama qarin oo dhahay laakiin wuxuu yiri aniga ayaa ka qaldanayo dhahay oo nolosheedu waxa aan ahaa aan u sheegin oo yiri ka qarsaday ka qiyaamay oo dhahay taas aniga ayaa ku qaldan oo yiri maantana jaceelkeeda ayaan meel aan la istaago ama ku harsado ama ku hoydo ayaan la ahayo dhahay xaqiiqatan wuxuu yiri inaan waasho ayaan ku dhaw dhahay wuxuu dhahay kulatu walaashay magaceeda ma sheegayo dhahay hadii wuxuu yiri qisadeeda abaaya aad ka sheekaysidoo dhahay iyo sidaan isku barano dhahay way soo raadinaysaa ayuu yiri xaqiiqatan in ay iska cafiso hadii aan aniga eri aan ka qariyo dhahay ama aan hadal ka qariyo dhahay hadii ama aan qalad aan ku jiro yiri ama aan ka qaldanayo yiri waa raali gelinayo dhahay inaan ka qaldanahana anaaba cadeenayo dhahay laano iyada gadaasheeda dambe oo dhan way iiga hadasho dhahay laakiin aniga ma aana ka hadlino dhahay waxa aan ahay iyo waxa aan ku suganahayne walaashay maba la qeybsanin oo dhahay laano wixii waan la aamusay oo dhahay waxaan dhooyir faadiya ahay qof faadiya ahay waxba igama daba jiitama kaliya meeshan ku nool aan ku dhahoor walaashay way soo biilin jirto yir wax alaala waxa u baahanay isiin jirto dhahay ya aad ayaan uga qaldan hooyir walaashay waxaan jecelahay yiri hadii xataa wuxuu dhahay jaceelkeeni ama nolosha shalay farxadii iyo jaceelka aan isku qabno dhahay hadee sidii noo ahaan karin oo yiri xataa in ay cafiso yiri walaashay cafis ayaan ka dalbanayaa dhahay aniga sid aan rababa aan noqdo yiri
ama aan u geeriyoodo dhahay ama aan sariir u koroo yiri si alaala sidii ilaahay ii qoro aniga ha iga dhigo yiri ama aan noqdo dhahay laakiin waxaan codsanayaa ayuu dhahay please waxaan codsanayaa ayuu dhahay gabadhaas walaashay ah xaq ayaan ka galo yiri aniga wax badan ayaan kala aamusoo dhahay wax badan ayaan ka qarsadoo dhahay ya laakiin aniga waa lagu ogaanayaa ama waa lagu soo ogaanayaa ama xogtaada dhan waa la keenayaa isma laheenoo dhahay marnaba isma dheheeninoo dhahay noloshaada waxa aad ku sugan tahay ama waxa aad tahay maalin un lagu keeni doonaa isma laheenoo dhahay aniga laakiin waa lay keenay aboo wuxuu iloobay bini-aadan ayaa jiro horta bini-aadan ayaa jiro horaa wax loo dhahay qof wax ku siiyo waa weynaysaa laakiin qof wax kuusoo sheego ma weynaysid wax kuu sheego ma weynaysid waad helaysaa taas la soco marka wuxuu dhahay walaalkeen walaashay waxaan ka rabaayuu yiri waan dhiman karaayuu yiri waa xanuunsan hoo dhahay sariir dhaqtaran jiifa sariiran dul saaran hoo yiri biyaha waa laygu dhibcinayaa waa lay siinayaa hadda in yar ayaan hadli karaayoo dhahay waa aan roona hoo dhahay walaashay waxa aan ka codsanayo waxay tahoo yiri asxaabee ya in ay iska kay cafisoo dhahay haddiise xataa isoo wici karinoo yiri ama ee ila soo hadli karinoo dhahay in ay iska kay cafiso waxa uu weydiisanaya wiilkan Soomaaliyeed waxay tahay in gabadhaas uu ku qaldamay beenta uu ku shukaansaday oo been u sheegay jecelkiisa dhan oo been ku dhisay wiilkan in ay iska kay cafiso ayaan maanta ka codsanaya ayuu taagan yahay wuxuu uu weydiisanaya ama uu raadinaya waxay tahay waa cafis wax kale ma aha in ay cafiso ayuu raadinaya abaaya adigana haddii aadna maqlayso waxaa ku leenahay walaasheen raali noqo 1 jeer annaga ayaa kusoo hoyanay walaalkeena in aad raali geliso aad tiraahid cafis ayaad iga tahay wuu ku jecel yahay qofka markuu jecel dhaba kuu qaadane xaqiiqatan runtoo dhan ayaa hortiisii imaanayso waxba lama aamusi karo haddii uu kuugu qaldanaa xataa inuu kuugu qaldan yahay wuu cadeysanayaa uu kuugu qaldanaa aniga shalatoole waxaan taamayo dhahay qof waxaan ahaayoo dhahay xaqiiqdii iska dhibaateysanoo yiri xaaslahoo yiri ana 2 caruuraan leeyahoo dhahay wuxuu yiri qof iska dhibaateysan keena aa wada taqaanaanoo yiri keen iyo kistaada ee tahoo dhahay haddaada kisaysan waxa aad tahay ma lahanoo dhahay wax aad tahay ma lahan haddii jeebkaagu uu maran yahoo dhahay anigoo iska dhibaateysan ayaan groupku isku baranoo dhahay gabadhan walaasheen ah group ayay sheekadana ka bilaabatoo dhahay group ayaan ka wada xiriirnoo dhahay dadka groupka anagoo ku wada jirnoo dhahay aan kasoo dhex baxsadoo dhahay xaqiiqdii wuxuu dhahay waana jeclaadoo dhahay haddana waxaan la aamusayoo yiri aan sheegi waayoo dhahay ama aan la hadli waayoo dhahay ma adaa dhihi karabo xasan leeyahay af aad ku dhahda ma leedahay waa may been ma rag badankood inta dhahda xasan leeyahay aniga ama caruura ay joogto inta dhahdo way tirsamaan inta kale asoo kasoo akacay dheeliyo dhahaan maba arkinba mana urin mana arfin giirkeedana ma arkin ee dhahaanba asiga weeba tuuleba ka deganeed asna magaalada jooga sidoo ii sheegay oo shaqo ka raadsanay dukaamada ka shaqeynaya marka abaay macaanto hadii aadna maqleyso ama codkayga aad maqasho ama videogayga oo ku soo gaaro please asxaabe idinkana waxaan ka codsanayaa in aad noo share gareysa sidoo gabadhaas u gaaro way isfahmaysaa waa hooyo 2 caruur ku leh wadanka qurbaha ku nool meesha ku nooshahay ma sheegana waa madnuuc Yurub ku nooshahay meesha rabto ha uga noolaato uu gaaraya wiil Afrika ku nool Kenya ku nool asiga waa la sheegaya Kenya ku nool yahay dad group Facebook oo la isku soo xiriiriyay ayayna isku barteen eena iskala dhaxbaxeen bartaas ayuu jecelkooda ka bilaabmay iyo aytiinkooda ayagoo heer guur isla taagan gabagabadii maraayo ayaa soo dhaxgalay shaydaankaanbu waa bini-aadanka dadka isku diraayo warka u kala qaadayo u kala geynayo u kala xantamayo waana qalabtaas in dad isjecel aad ka dhex shaqeysaan dad isjecel inaad war u kala geysaan dad wada nool inaad war u kala qaadaan ama aad dhexdooda ka hadashaan taas waa qalad marka wuxuu dhahay wiilkan walaalkeen ah walaashay waan ku qaldamay waana ka qaldanayo dhahay in aniga wixii aan ahay ama wixii aan ku sugnaayo yiri oo tafatiranayo oo xabadna aan ka maqneen oo xabadna aan ka daboolneen oo dhahay hal xabana aan ka qaldaneen oo yiri ee faraha iga soo saartoo dhahay
habeenkaasaan iigu dambeysuu yiri intaan waxa aan la aamusnaayo dhahay waa xanuunsanayo dhahay horta midda koowaad wuxuu dhahay dhakhtaraan galoo yiri haddaan dhakhtarka kasoo baxo dhahay sariiraan weli jiifaa weli ma aana dhaqaaqin oo dhahay oo meesha aan rabo ma aana aadin oo dhahay mana shaqaystuu yiri meelna uma kicitimo dhahay sariirteeda ayaan dul aalaaho yiri jacayl oo la dul yaalaa kulay tab wax kale ma aha waa jacayl qofku uu jecel yahana biliis waxaan ka codsaneynaa in ay la hadasho qalad wuu dhaca carab iyo ilkaas ku dhow way isqaninaan inay cafiso walaalkeed la hadasho la xiriirto raali geliso ina iscafiyaan haddii xataa ay jaceylka iyada meeshaas ooga dhamaaday ama ooga idlaaday in ay la hadasho walaalkeed ay raali geliso ama ay la hadasho biliis abaayo codsiya naga tahay la hadal la xiriir iska cafi in case xataa wuxuu dhahay inaan dhimanayo inaan noolaanayo ilaaha og aniga ma ogiyo dhahay haddii xataa aada awoodin in aad la hadasho iska cafi calooshaada u fur nadiif oga dhig $5 aad ku tiraahdo walaal waa ku cafi waxba kaama dhibeyso walaalkeen iska cafi abaay macaanta haddii aad jecel yar u haysane xataa bogaadin yar ee kuugu dambeysane la hadal oo la xiriir meesha uu ku sugan yahay waad garanaysaa meesha uu joogana waa aad taqaanaa la hadal oo la xiriira ku leenahay walaasheen videogan asxaabteeda hadduu idin soo gaaro ii share garay ii laa garay comment qurux badan hoos iigu reeb waad ku mahadsantihiin daawashada ay daawanaysiin dhammaantiin waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jacaylkan ha guulaystaa idin leeyahay dhammaantiinba